أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. dalka koonfur afrika ayaa maanta si weyn looga dabaaldegay munaasabada ciidul fidriga iyadoona dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Cape Town ay saakay u dareereen goobaha loo iclaamiyay in lagu dukado salaada ciidul fidriga waxaana salaada lagu kala dukaday laba goobood iyadoona salaada la dukaday abaarihi 9 subaxnimo culimadii dujisay dadweynaha Soomaaliyeed ee magaalada Cape Town ayaa soo jeediyay muxaadarooyin ku saabsanaa munaasabada ciidul fidriga waxaana ay sheegeen in maanta oo kale loo baahan yahay in la iscafiyo isla markaana la isku ambaliyeeyo haddaba qaar ka mid ah dadweynihii Soomaaliyeed ee ku ciiday magaalada Cape Town oo Universal TV la hadlay ayaa salaamo iyo hambalyo awada isu mariyay dhammaan halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan waalidkayga asxaabteyda dhammaan جيجي كاله هدي يا صومالي جيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا تمام dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo bashbash waxaan idin leeyahay kullu caamin wa antum bikhayr taqabbal Allahu minna wa minkum bisalih al-a'mal wa salaamu alaykum wa rahmatullah ciid wanaagsan ayaa leh dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed waalidiinteeda meel alla meesha ka joogaan waddanka waxaan leeyahay ciid wanaagsan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan salaamayaa gaar ahaan waalidkayga عيد مبارك عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdullaahi Saciid Faarax waxaan halkan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan Soomaalida waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday aan aad u jeclahay Caasha Cabdi iyo xaaskayga aan jeclahay aan kala fognahay كل عام وأنتم بخير وأنا لكم السلام يا ضمان أصحابتي اليو قرابتي وحنا مصطفى حسن Universal TV مقالة كيب تاون